halaga ceeriyo kooxda waa Damiin Ferdinand oo furka ku tuuray mid kamid ah xidigaha qadka dhexe ee United. Rio Ferdinand ayaa si furan uga hadlay xaaladda xidiga qadka dhexe ee Manchester United Manuel Ugarte, isagoo sheegay inuu aad uga niyad jabay qaab ciyaareedka laacibkaas. Waa inaan xaqiiqda ka hadlo, waan ka niyad jabay Ugarte. Waa ciyaaryahan markii uu imaaday qof walba uu dhihi jiray waa nin orod badan, waa nin taakal samayn kara, waa nin dhaqaaqi kara. Sharaxaadda aan helayay waxay ahayd inuu yahay nooc ciyaaryahan aan u baahanahay, balse taasi may dhaboobin, mana soo muuqan ilaa hadda. Ma arkin ciyaaryahankii ay dadka oo dhan ka hadlayeen ee dhanka awoodda uu dadka ugu dhawaan karo si degdeg ah iyo taakalada. Taas waxaa loo qaatay inay qayb weyn ka tahay ciyaartiisa, inuu noqdo mid gardaro ama firfircooni badan. Ma uusan soo bandhigin calaamad kulan dhexdiisa ah oo iga dhigaysa inaan iraahdo ninkani wuxuu noqon karaa mid ka mid ah kuwa qadka dhexe noogu dagaalama ama xakameeya ee wax walba dhaqaajiya. Meel u dhow taas maba uusan soo gaarin. Dhinaca kale, William Saliba oo fariin culus u diray Mikel Arteta iyo ciyaartoyda Arsenal kadib guushii Carabao Cup-ka. William Saliba ayaa qirtay hadal daacad ah kadib guushii 3-2 ahayd ay Arsenal ka gaartay Chelsea tartanka Carabao Cup-ka. Waxaan rabnaa inaan ku guuleysano wax kasta. Waxaan ku daalay inaan xil ciyaareedka dhameysto anigoon waxba jeebka ku weysan, ayuu yiri Saliba. Hadda waxaan haysnaa 4 tartan oo aan ku guuleysan karno. Jeebkaygu wuxuu ahaa mid maran sanadihii hore. Hadda waxaan rabnaa inaan ku guuleysano wax kasta. Carabao Cup, FA Cup, Champions League iyo Premier League ba. Dabcan ma fududa. Way fududahay in la yiraahdo, laakiin waxaan rabnaa inaan garoonka dhexdiisa ku cadeyno. Waxaana bixin doonaa wax kasta si aan ugu guuleysano koob kasta. Ugu dambeyn, maamulka Real Madrid oo digniin culus u diray ciyaartoyda kooxda kadib guuldaradii ka soo gaartay kooxda heerka labaad ee Albacete. Madaxda sare ee Real Madrid ayaa qorsheeyay kulan foolka-fool ah oo ay la yeelanayaan ciyaartoyda kooxda kahor kulanka La Liga ay Sabtida la ciyaari doonaan Levante, si ay u adkeeyaan mas'uuliyadda saaran ciyaartoyda kadib bixitaankii Xabi Alonso. Sida ay warisay majalada AS, hoggaanka kooxda ayaa fariin cad oo kulul u diri doona ciyaartoyda, taas oo ah Xabi Alonso hadda halkan ma joogo, sidaas darteed idinka ka mas'uul ah wax kasta oo hadda halkan ka dhaca. Tani waxay ka dambeysay kadib guuldaradii naxdinta lahayd ee 3-2 ay ka soo gaartay kooxda heerka labaad ee Albacete, taas oo keentay in laga reebo Copa del Rey kulankii ugu horeeyay ee Alvaro Arbeloa uu hogaamiyay kooxda. Dhacdadan ayaa kor u qaaday baaritaanka lagu hayo qaab ciyaareedka, habdhaqanka iyo hagarbixidda ciyaartoyda ee kooxda. Fiid wanaagsan saaxiibayaal, warbixintan waxay qayb ka tahay barnaamijkeennii bandhiga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii la dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.